بسم الله الرحمن الرحيم أرضي وايد سلامي مع عبد القادر حسن عوالة iyo maadadeenii sayniska ahayd jabtarkeenii toddobaad oo agriculture ka ahayd casharkiisa labaad lesson 2 poultry and fishing waxaan ka hadlaynaa dhaqashada ama xanaaneynta digaaga iyo kalluunka ayaan kaga hadlaynaa waxaan casharkeena si fiican xoog ugu saareynaa qaybta poultry-ga ayaan xoog ka saareynaa si fiican xoog u saareynaa sidaas iyo la socod wanaagsan objectiveskeena casharkeenu marka uu dhamaado ahdaafta leena ka rabo ama objectiveka laga rabo bartaha marka uu casharku dhamaado ahdaafta laga rabo ardaygu inuu xallin karo ama problemska laga rabo inuu xallin karo number 1 waxa way divine poultry waa inuu qeexi karaa poultry waxa looga jeedo ama ujeedka poultry laga leeyahay waa inuu define gareyn karaa oo qeexi karaa describe artificial and natural occupations process hababka loo xanaaneeyo digaaga oo ah habnaha artificialka habkan dad sameeyga ama sanaaciga iyo natural occupation process oo habkan dabiiciga inuu labada habba uu sharaxaad ka bixin karo ardayga identify common chicken diseases and parasites inuu cadeeyo ama sheego cudurrada ku dhaca digaaga iyo sida dulinka oo kale waxyaabaha dulinka ama dulmiska cuna oo keeni kara inay xanuunsato state the effect of parasite have on parasite inuu sheego saameynta uu ku leeyahay parasite-ku digaagii oo kale poultry marka waa maxay the word poultry refers to the any breeds ready for meat or for egg waxa uu noo sheegaa dhaqashada la dhaqanayo digaagii oo kale iyadoo loo dhaqanayo sababta loo dhaqanayo ay tahay in laga helo cunto iyo ukun waxyaabaha la dhaqanayo ama waxa kamid ah shimbiraha kala soo hoosgalay marka such as birds including chicken oo kala kamid ah digaagii oo kale ducks ka shimbirta la yiraahdo kamid ah pigeons ka kamid ah angiis waxa weeye waa shimbirahaas oo waxa loo xanaaneynaya chicken ku waxa weeye waa kayn kamid ah shimbiraha weeye muhiimadda loo xanaaneynaya waxa weeye in laga helo hilib iyo ukun marka erayga poultry wuxuu noo sheegayaa dhaqashada digaaga iyadoo sababta loo dhaqanayo ay tahay ama muhiimadda loo dhaqanayo ay tahay in hilib laga helo iyo ukun laga helo okay hilibka marka waxa loo isticmaali karaa in la cuno oo kale ama inta la package gareeyo in la export gareeyo oo kale ukuntu ayadana waa intaas oo kale ama waa la dhoofin karaa ama si loo kala ayaa loo isticmaali karaa types of poultry poultry-ga waxa loo qaybiyaa laba qayb poultry broiler iyo layer labadaas loo qaybiyaa poultry broiler iyo layer ayaa loo qaybiyaa labadaas nooc ayaa loo qaybiyaa waxaan arkaynaa labada nooc waxay ku kala duwan yihiin iyo farqiga u dhaxeeya iyo mid walba waqtiga la adeegsado broiler kan ku hormarayna in this type of poultry the chicken whether male or female are ready for meat xilliga kan broiler ka waxa loo dhaqanayaa ha ahaato mid dig ama mid laba ha ahaatee digaaga waxa loo dhaqanayaa in hilib ahaan baa loo dhaqanayaa barboska loo dhaqayaa waxa weeye waa in hilib ahaan baa loo dhaqayaa in la qalo ayaa loo dhaqanayaa The farmers feed them with a nutrition food in order to make them grow and increase the weight quickly and their hence lay few eggs. waxay xilliga kan dadka dhaqanaya ay u dhaqaya oo ay siinayaan nafaqaad ay siinayaan sida inay duraaniin oo kale waxa la rabaa in jirkeedii aminkaba la kubciyo sidoo kale waxa la rabaa inay dooradii ay dhasho ukun baa la rabaa inay maalin walba ama ay soo saarto ukun baa la rabaa si loo iibgeeyo oo loo geeyo meelaha lagu xanaaneeyo ka bacdi in hilib ahaan loogu isticmaalo qaybta labaad oo la yiraahdo layer in the layer the type of poultry chicken are ready for egg production ayada waxa loo dhaqanayaa egg production ayaa loo dhaqanayaa inay ukun soo saarto ukunta marka la soo saarayo sababta loo dhaqayaa waxa weeye ama wadanka gudihiisa si loo kala loogu isticmaalaya ama waa la export gareynaya barboska loo dhaqanayaa waxa weeye waa for commercial issue waxa loo dhaqanayaa hab ganacsi oo kale iyada waa la dhoofinayaa ama wadanka gudihiisa ayaa lagu isticmaalayaa iyadoo ukumihii lacag lagu bedelanayo they are small in size and they are light in weight size-koodu markaan waa u yari ukumahaas size-koodu waa yar yahay sidoo kale weyd ahaan ama culayskooduna waa u yari
okay poultry housing waxa weeye waa ukuntii sidii meel guriga loo gelin lahaa oo kale yaani meel ku haboon oo kale loogu xanaaneyn lahaa guri baa loo sameeynaya ama meel yar oo wax loo dhisaya qiimada meeshaas bay ku jiraysaa halkaas baa lagu xanaaneyn marka environment-ga la rabo in lagu xanaaneeyo environment noocee uu noqonayaa meel walba ma lagu xanaaneyn karaa mise meel qaas oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo ayaa jirta oo hawo ahaan ku haboon ama deegaan ahaan iyo cimilo ahaan ku haboon be located on appropriate sites meeshaas waa inay ku taalaa meel ku haboon dhaqashada digaag oo kale inay tahay there is adequate circulation of air waa inay leedahay hawada wareega hawada waa inay leedahay meeshaasi hawo fiican waa inay tahay meel hawadeeda ama saxadeedu ay wanaagsan tahay the farmer has easy to access a chickens for feeding and to provide security meeshaas la geenaya marka waa meel ay tahay meel ay yaani secure ah meel amni inay tahay nafaqaadkeedina ay ka helayso haddii aysan meeshu amni ahayn oo ay dhibi ka soo gaarayso kuma dhaqmi karto ama aysan ahayn meel ay ku dhaqmi karto carasana marka waxa loo baahan yahay meesha lagu xanaaneeyo inay tahay meel amni ah sidoo kale inay tahay meel ay ka helayso nafaqaadkeeda ama waxyaabihii ay u baahneen qodobka afraad there is a good drainage to prevent a flooding which encourage disease and parasites inay ka fog tahay oo kale meelaha ay dhibaatadu uga imaanayso kale in laga fogeeyo meelaha dhibtu ay uga imaanayso ama cudurradu ay ka dilaacayaan oo kale ama meelaha parasite dulimka leh oo kale si aysan bahashi dhaqashadeedii aysan dib u soo gaarin waxa loo baahan yahay meesha lagu dhaqayaa inay tahay meel dulina ka fog cudurrana aysan ka dilaaci karin muhiimadu waxa weeye intaas weey waxa jira incubation waxa weeye waa habka ukunta loo ilaalin lahaa waa habkii ukunta loo handle garayn lahaa incubation means keeping eggs under conditions that allow them to hatch into chicken waxa weeye waa hab u ogolaanaya ukuntii oo kale inay si properly loo bacrimiyo oo kale ama lagu handle gareeyo xaaladda ugu wanaagsan oo kale qaabka rabto hadaa u handle gareysid waxa laga yaabaa inay dhibaato soo gaarto marka waxa la rabaa habka ugu wanaagsan oo suitable ka inaad u handle gareysid si ay ukuntii u noqoto mid caafimaad qabta good types of occupation ka waxa noocyadiisa kala types of occupation kaas loo handle gareynayo waxa uu kala baxayaa laba hab ayuu kala baxayaa hab waxa la yiraahdaa arday artificial baliya artificial incubations waa hab dad samee ah ama waa hab sanaaci ah eggs are placed in a special machine called incubator eggs ka ayaa waxa dhex gelinayaa machine khaas ah oo loogu talagalay machine kaasi marka wuxuu ka saacidayaa inay hesho hawo diiran oo kale inay hesho kale ukunti iyo inay si properly ay u korto small incubators which run on kerosene can be bought for hatching a small number of eggs waxa uu keenayaa oo kale ukunti inay soo saarto oo kale ama ay tadawur samayso oo kale ay yaani ay ku kobacdo xilligaas oo kale machine kaas uu keenayaa machine kaas marka waxay ka helaysaa dhamaan wixii ay u baahnayd bay ka helaysaa ukuntu marka isaga ayaa dadajinaya waliba si degdeg ah buu u koraya waxa laga yaabaa inuu ka hormaro habka naturalka habkan inuu ka kobcin og yahay oo ay ukuntii aminkaba ay ka kobci ogta marka habka waxa la yiraahdaa artificial occupation ukunta ayaa la soo qaadayaa machine ayaa la dhex dhigayaa machine kaas ukuntii waxa uu siinayaa waxyaabihii ay u baahnayd oo dhan sidoo kale wuxuu dadajinayaa inay waqti dhow ay ku bacrinsanto natural occupation in this method brood hen sits on the egg until they hatch to chicken habka naturalka waxa ku fariisanaysa dooradii ayaa waxa ku fariisanaysa ukuntii mahensigii ilaa ma inta ay ka bacrin samayso ay on which shows a natural tendency to set on eggs and rear chickens waxayna ku fadhiyaysaa waqtiga waxa ka dambeeya ukunta ayada ayaa bacrin samaysa ka bacdina waxa loo dhaqayaa loo xanaaneeyaa habkii loo rabeeyaa loo handle gareynaya ida in loo xanaaneeyo for meat
or for egg production. Poultry diseases cudurrada ku dhaca digaaga oo kale. Poultry diseases ka ku dhaca waxa la yiraahdaa ugu horeeya parasite-ka baa kamid ah. Parasite-ku waxa weeye waa dulin, hadii dulinku uu cuno digaagii oo kale waxa imaanaysa digaagii inuu dib soo gaarto kale oo isbedelo caafimaadkiisa oo kale. waxa kale oo isbedelaysa production-ka ama wax soo saarkiisa ayaa isbedelaysa. waxa kale oo ku dhaca typhoid sida bini'aadamka oo kale. waxa ku dhaca typhoid ayaa ku dhacaya. typhoid baa la yiraahdaa Soomaalihan ayaa ku dhacaya. wuxuu ku ridayaa marka jahwareer ayuu ku ridayaa xilligii ay ukunta soo saar lahayd oo kale ayaa khaldamaya, sidoo kale dhibaato ayuu u geysanayaa. Coccidios ayaa jira oo la yiraahdo Soomaalihan isagana waa cudur ku dhaca qirsha ayaa la yiraahdaa. isaguna waxa uu dhib ku yahayna xagga wax soo saarka ukuntii, sidoo kale waxa isbedelaya markii la qalo oo kale midabka hilibka ayaa isbedelaya. isaguna waxa uu ku yahay digaagii waxa uu ku yahay dhib ayuu ku yahay. okay, saddexda cudur ayaa cudurrada ugu badan oo ku dhaca. kuwa kale oo ku dhaca waa jiraan, laakiin saddexdaas ayaa ugu xoog badan arday. waxaan ka hadlaynaa oo kale fishka oo kale. fishku waxa weeye waan garanaynaa waxa weeye waa kalluunkii weeye. kalluunku waxa weeye waa noole biyo ku nool badanaa waxa uu ku nool yahay biyaha ayuu ku nool yahay. waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo badan ayuu leeyahay. Soomaalidu waxyaabaha ay haysato ama dhaqaalaheeda ugu xooggan dhaqaalaha wax soo saarka wadanka ugu badan waxa kamid ah waxa number 1 ah xoolaha, dhaqashada xoolaha ayaa marka xoolaha la dhoofiyo. second source-ga labaad ugu xoog weyn inuu haysano waxa weeye waa kalluunka, waa fishka weeye. fishku waxa uu sameeyaa economic contribution-ka wadanka qayb lixaad ayuu ka yahay. waxaana ku tiirsan dad aad u badan ayaa ku tiirsan. kharash badan in ka badan wadanka waa ka soo galaa. waxaana loo isticmaalaa qaybna wadanka gudihiisa ayaa lagu isticmaalaa, qaybna waa la dhoofiyaa. challenges badan ayaa haysta kalluunka. waxa kamid ah kalluunka sharci darrada waxa kamid ah kalluumaysiga sharci darrada illegal fishing-ka kamid ah. waxa kale oo kamid ah badii oo aan dadka oo aan xirfad fiican badii u lahayn oo aan yaani agabkii ama instrumentii ku filan aan haysan ayaa iyaduna kamid ah challenges-ka haysta. noocyo badan ayuu kalluunka u kala baxaa. noocyadiisu waa ay badan yihiin, noocyo badan ayuu leeyahay. okay, ardayda casharkeena sidii ugu dambeysay qaybta ugu dambeysay waxa weeye waa exercise weeye. exercise-ku waxa uu su'aalaha badankooda ay ka yimaadeen casharkeena ka yimaadeen. su'aaluhu casharkeena bay ku jiraan. waxa loo baahan yahay casharka marka akhrido inaad su'aalaha kana aad ka jawaabtid. su'aasha koowaad waxa ku leedahay what is the difference between artificial occupation and natural occupation? waa maxay farqiga u dhaxeeya natural occupation iyo artificial occupation? casharkeena ayaan ku soo dhaxray. name 3 poultry diseases. waxa sheegtaa 3 cudur oo digaaga ku dhaca. okay, describe the symptoms of typhoid. waxa sheegtaa symptoms-ka uu leeyahay typhoid. describe the symptoms of typhoid of poultry. waxa sheegtaa typhoid ku dhaca digaaga oo kale symptoms-ka uu leeyahay. su'aashaas adaa laga rabaa inaad raadisid. name 2 external parasites of poultry. waxa sheegtaa labo waxa sheegtaa parasites oo kuwaynu soo sheegnay aan ahayn oo iyaduna digaaga saameeya. ama name 2 external parasites of poultry, ama waxa sheegtaa laba dulin oo ku dul nool digaaga sheeg. aad iyo aad baa u mahadsantihiin arday. maalin wanaagsan.